الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ولليال الله سبحانه وتعالى يا مدسن إلهي بانكم هدينا ونعمين كان نسيجي dadka muslimiinta in la daaro mar walba loo sheega waa laga maarmaan oo waliba aan waqtiyalka oo aan soo gudbinayna barnaamij iyo khayraadka in la qaato waajib naga saaran haddana galabta waqti kale isku soo laabanay biidnillaahi tacaala waxaan rabaa inaan wax ka sheego arrimo dhowr oo gaaban taasoo ah horta mid koobaad inay muslimiinta ilaahay tala saartaan subxaanahu wa tacaala tawakkaltu cala allahi ayaa muhiim ah ilaahay loo dhiib talada horta mid koobaad oo aadan ugu baahannahay maxaa yeelay wax walba daa'imaadaan musiibooyinka iyo dhibka daa'imaadaan ilaahay in la tala saarto waa laga maarmaan waana waajib naga saaran midda labaad waxaa waaye dadka muslimiinta inay ku dadaalaan nadaafadda diinteenna bay asaaskeeda waaya ad-duhuuru shadru nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ad-duhuuru shadru al-iimaan nadaafadda marka walaalayaal iimaanka niskiisa waaya inay dadka ay ku dadaalaan nadaafadda muslimiinta oo gacmaha la iska nadiifiya meesha la saxan la iska nadiifiya musqusha la iska nadiifiya marka la weysaysan horteeda waa nadaafadda ay weysada lagu dadaala ayaan iyadana hadda muslimiinta ku boorinaynaa midda saddexaad oo iyadana aan dad ku boorinay waxa waaya oo aan ku soo qatimaya dugsiyaalkii waa la fasaxay madrasooyinka waa la fasaxay iskuuladii waa la fasaxay sababta loo fasaxayna waxay ahayd cudurka had socda bay ahayd fasaxi markii oo madrasooyinkii diinta lagu baranay iyo dugsiga quraanka lagu baranay loo fasaxay wixii loo fasaxay wax yar ma aha wax weyn arinta ayadaheed marka dhalinyartii waxay bilaabeen inay garoomaha ambirta isku imaadaan oo meelaha ambirta lagu ciyaaro ay tuuran yihiin oo ilaa maqribka ay meesha joogaan taas nafteeda waxa waaya inay cudur faafisa laga yaabaa dhalinyarta waxaan u sheegaynaa sababta quraanka ilaahay loo fasaxay madaarista diinta lagu baranay loo fasaxay waxa waaya cudurka faafitaankiisa iyo sida loo hortago baa loo yeelay garoomada ambirta lagu ciyaaro isku imaadaysaan sharaacada dadka muslimiinta iyo culimada qalaafina ilaahay geena ka baqa cudurraha macnaha meelahaas oo kale waa ku faafaan iska jira goobii diinta ayaa la fasaxay idankan ambir iyo macnahaas qiimayn ku taraysa inay iska fasaxdaan oo banaan ka martaan bay diinta ku jirtaa waalidiinta ilma alayn waxaan fartiin u fariinaa ilmaha mas'uul baa idinka saaran mar hadda iskuulkii la fasaxay dugsiyaalkii la fasaxay madaaristii la fasaxay ilmaha in oo duurarka waraabada gacanta loo geliyo ma aha cadowgooda ayaa badan dhib fara badan bay la kulmayeen shaydaanka bay iska daba kacayiin ilmihiina ka warhaayo oo ilmaha in laga warhaayo meeshay jiraan habeenkii waqtiga tuhoyna waa inay ogaataa cunuga waa inuu maqrib masaajid ku tukadaas ka warhaysa cunuga cuntadaas cuna waa inaa ka warhaysa meel uu fadhi waa inaa ka warhaysa ilmaha fasaadka magaalada waa batay dugsiyaalkii wixii waa la fasaxay shaydaanka bay gacmaha u galeen waalidow ilmihiina ka warhaaya ilaahay qiyaaman waa idin weydiin doonaa oo kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi marka qof walba wax baa la raaci loo dhiibi qof walbana wixii la raacay qiyaamo waa la su'aali doonaa marka intaas maanta aan ku khatimayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala alla barya ilaahay alla tala saarta nadaafadana lagu dadaala ilmahana waxbarasho ilmahana meelaha goobaha ambid waxa lagu diga marka ilaahay subxaanahu ilaahay cudurka naga qad ilaahay cudurka dabash naga raaci ilaahay cudurka muslimiinta wadamada kala xsaar ilaahay meel ilaahay cudurka naga badbaadi ilaahay nabad iyo macnaha amni ilaahay nagu dadaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh